wiilka cusub ee Manchester United Casemiro ayaa hoos u dhigi doona mushaarkiisa haddii kooxdu ay ku guuldareysato inay gaarto Champions League xilli ciyaareedkan sida la sheegay. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brazil ayaa la keenay Old Trafford toddobaadyadii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga xagaaga isagoo heshiis gaari kara 70 milyan oo gini lagula heshiiyay haddii la helo waxqabad wacan. Erik ten Hag ayaa dareenkiisa u weeciyay lafdhabarka Real Madrid kadib markii ay caddaatay in kubad sameeyaha Barcelona Frenkie de Jong uusan doonayn inuu u dhaqaaqo Premier League. Waxaa la soo wariyay xilligaasi in Casemiro lagu waday inuu jeebka ku shubto mushaar kordhin aad u weyn kadib u dhaqaaqistiisa United, balse waxaa hadda la shaaciyay in 30 jirkan mushaarkiisa uu kaliya kor u kac yar sameeyay, waxayna xitaa hoos u dhigi karaan sanadka soo socda iyadoo ay ku xiran tahay sida ay kooxdu u soo bandhigto waxqabadka garoonka dhexdiisa. Jariirada Athletic ayaa qeexday in Casemiro uu helay kaliya kor u qaadis yar ee mushaarkiisa marka loo eego waxa uu ku qaadan jiray Spain, waxayna u badan tahay in xirmada mushaarkiisa ah hoos uga sii dhacdo lacagtii uu hore u qaadan jiray haddii Manchester United ay ku guuldareysatay inay gaarto ujeedooyinkeeda xilli ciyaareedkan oo ah u soo bixitaanka Champions League. Casemiro ayaa loo fududeeyay nolosha Premier League kadib markii uu ka soo wareegay Los Blancos iyadoo Ten Hag uu ka faa'iideystay Christian Eriksen iyo Scott McTominay oo qadka dhexe ku lamaaniyay toddobaadyadii la soo dhaafay. Dhowr jeer ku guuleystaha Champions League ayaa loo gacan galiyay bilaabashadiisii ugu horeysay habeennimadii Khamiista kulanka Europa League ee guuldarada ka soo gaartay Real Sociedad, waxaana loo badinayaa in lagu dari doono shaxda Ten Hag ee 11 lagu bilaabayo kulamada isbuucyada soo socda. Xaaladda Casemiro waa wax iska caadi ah ma noqon doono ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Manchester United oo arka hoos u dhaca mushaarkiisa haddii ujeedooyinka la fulin waayo. Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa in lagu dhuftay qodobkaas la mid ah kadib ololihii masiibada ahaa ee kooxda sanadkii hore. Waxaa la sheegay in xiddiga reer Portugal uu arkay mushaarkiisa $1 milyan oo la dhimay kadib markii United ay ku dhameysatay kaalintii lixaad iyadoo uu hagayay tababarihii ku meel gaarka ahaa ee Ralf Rangnick. Ciyaartoyda ayaana xisaabta ku darsan doonin qarashka haddii United ay ku guuldareysatay inay hesho waddo ay ugu soo laabato miiska ugu sareeya Yurub xilli ciyaareedkan oo uu hogaaminayo Ten Hag. Horaantii xagaagan ayaa la tilmaamay in heshiiska qaaliga ah ee 10 sano ah ee kooxdu la gashay shirkadda Adidas kaas oo lagu sheegay 750 milyan gini in la dhimayo 30% haddii ay United ku guuldareysatay inay ku soo baxdo Champions League, taasoo la macno ah in 750 milyan oo gini laga jari doono 22.5 milyan oo gini.